أحمد الله إلهي ذا الكرم. arooskan oo dadka kasoo qaybgalaya ay si weyn ugu faraxsanaayeen ayaa waxa uu ahaa arooska imaamka masjid al-furqaan imaam cabdirashiid sheekh haaruun iyo marwadiisa asmaa sheekh cabdiraxmaan balal oo ay kasoo qaybgaleen inta badan bulshada ku nool magaalada Mombasa oo ay horkacayeen culamaa u diinku. xafladda iyo siday u dhacday aan idinka dhacbaxo iyadoona lagu bilaabay aayadaha qur-aanka kariimka. aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa martida sharafta leh oo ay ugu horeeyaan culamaa u diinkeenna magaalada Mombasa, masjid al-furqaan iyo masjid ibn Abbas iyo masjid Bilal iyo dhammaan masaajidada kale ee magaalada. maantay arooskeenna waa aroos dhab ahaantii ahlu khayr ay is aroosayaan, waa aroos culumo. walaalayaal haddaan idin xasuusiyo, maanta halkan waxaan isugu nimaanay waxaa weeyaan yagleelidda iyo dhisidda qoys ku soo biiraya mujtamaceenna, bulshadeena Soomaaliyeed, bulshadeena muslimiinta ee magaalada Mombasa. waana qoyska walaalkeen imaamka masjid al-furqaan al-akh cabdirashiid sheekh haaruun iyo weliba sidoo kale walaasheen asma cabdiraxmaan balal. anagoo ku hadlaya qoyska labada dhinacba waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida aad noo sharafteen, maadaama mujtamaca iyo bulshada muslimka xuquuqda ay isku leedahay ay ka mid tahay haddii lagu yaro lagu marti qaado inaad soo ajiibtid. waad mahadsantihiin. xafladeenna waxaanu barakaysanaynaa, aanu ku bilaabanaynaa aayaad min alqur'aan alkariim oo uu inoo akhrin doono al-akh alqaari محمد شالة. فليتفضل مشكورا ومأجورا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. waxaan hadda kelmadda siinayaa insha Allah Sheekh Shariif oo Sheekh Shariif Cusmaan oo ka mid ah culimada magaalada Mombasa. anoo si gaar ah ugu mahadcelinaya sidoo kale dhammaan culimada magaalada Mombasa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajri xasanaad ha ka siiye oo hoos timaada dalada culamaa as-sunnah oo dhammaantood halkan ay wada fadhiyaan. kelmadda ayaan siinaynaa insha Allah ku saabsan baraarujinta iyo weliba sidoo kale guurka ahmiyadda uu leeyahay oo sheekhu inoo taaban doono. kadibna waxaan gudagali doonaa barnaamijka qaybihiisa kale. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إخوة الإيمان، marka hore waxaan isku baraarujinaynaa aan isu dardaarmaynaa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala. waayo nabiga calayhi salaatu wassalaam muslimiintu wuxuu ku booriyay oo uu amray haddii ay isugu imaadaan majlis min majaalisil khayr ah inay maartay isku baraarujiyaan meelaha ay ku kulmaan muslimiinta. majliskan wuxuu ka mid yahay majaalista khayrka ah sida aan maartay aan wada ognahay. إذن آيات هورا أنكو بالله أنكو فرفرتي الله سبحانه وتعالى وحنوغ أمري إن أنك عبصونا ساس أو كلن أن فيرنا وها أن أهر مرسنين نفتين معنى ذلك نفك استوحى إذا صور مرينيس وخيره إما شر أو خير نفتاد أهر مرينيس إما خير أو شر. إذن وها نفتاد أهر مرينيس وين هذان وها خيره oo adduunyo aakhiraba aad ku liibanaysid. wuxuu ku gunaanaday hadan absada Allah ay ku gunaanaday aayadaas. aayada labaad oo aan akhriyay oo suuratu Rum, Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxaan idin abuuray azwaaj dumar ama haween. markan haweenka markaad fiirisid aayadan siyaaqeeda qaabka aayada martay u dhawaaqaysa دمرك وحلو أبوري رجل أبوري لأنه قال جل وعلا أن خلق لكم من أنفسكم. آيات كيس وحكم ده إن ويدين أبوري دمر أما هوين محلو أبوري حكمة قدام بس ما هاي تاي أو دمر لو أبوري لتسكنوا إليها تعليل كمشي كجرا لتسكنوا إليها. إذن ننكي حاصل الآن وحكم مكان سكونه ده كم مكان دجنان ده كم مكان قفك حاس عن لهين وفعلا سكورها كمقن وعود بدقي لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا بشيء بيشان كشري الله إن ويلي رجع الدمر كده حظوظه لا أرنج كوات تعال أو مودة أرنج لبان ونحريس دمرين مارت اللي سود دمرين لا بدو قف سود دمرين عيان. إذن مودة مدة أي لذا محددة واي جعل كما لم يكون واي لكن وحد بين النحريس دمرين تلسود دمرين أيام أرتي سيس عنيس ما دام لا يوقف أي وذا جوجان. إذن آيات عليك متى حديث عن أخريي وحكمة حديث كوات نبي عليه الصلاة والسلام كلهم كذا يرد وحو أمري مسلمين تاه إن أيجور سيدان يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. وحو أمري ذاتك مسلمين تا يرد مع اسم الشباب على شيء لكن أضياش بيها بكجران. إذن إن أي جور سدان فوائد جورك محاكمة ده محاكمة ده حفظ حفلة قروح البدن أدار كيسان عندي سوق بنقابسي وجدد لقى لها وحن لنا هاي إلهي هبركيو وأقول رنتي عاد أنا وفرح سناي وحن لنا هاي إلهي هاي سكودقو كويس كوارنا الله كدقو سيد الشيخ شريف كان وشاقي جوركو حكنا شيء مسؤوليات وين marka wiilkan adeerku ahay waxa laga rabaa marka insha Allah mas'uuliyadda siday tahay inuu guto ilaahayna weydiisto inuu la garab galo waa mas'uuliyad adag oo noloshaada iyo fikirkaaga iyo dhaqaalahaaga iyo aragtidaada bedelayso marka mas'uuliyaddaas inaad ku adkaataa loo baahan yahay haddii Ilaahay ka dhigo kulay nin culimo tahay oo ehel khayr ah oo la jecel yahay anagana waa ducadan idinku kaabayna insha Allah adiga gabadha ana waa hayba insha Allah hawshan hawl hore ugu soo dhamaatay oo muxuu ahay gabadha la soo weydiistay waaya
hadda maanta wax isweydiiso halkan ka dhacaya mala hore u soo dhamaatay waa duco iyo isbarasho iyo muxuu ahay alle bari weeye insha Allah waad ku mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leenahay imaam cabdirashiid baarakallahu lakuma wa baraka calaykum wa jamaa baynakuma fi khayr aad iyo aad baan runtii ugu hambaliyeynaynaa uguna ducaynaynaa cabdirashiid iyo xaaskiisa ilaahay isu barakeeyo ilaahay awlaad saalixiin ha kala siiyo xuduurkan qiimaha badan oo la isugu yimidna waa runtii farxad aad u weyn reer Mombasa waxaa muuqata isjacayl waxaa muuqata isqiimayn sidoo kale waxaa muuqata alimaam cabdirashiid shacbiyadiisa inay sahlanayn maxaa yeelay masjidka ugu horreeyey ee masaajideenna ayuu imaam ka yahay marka aad iyo aad baan runtii kugu mahadnaqayna waad mahadsantihiin ilaahaydan dhowra guurkana aan badinno guurka aan fududayno guurka aan ku dadaalno guurka aan isugu kaalmayno tawfiiqan allah nasiib wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa codbaahiyaha sheekh cabdiraxiin abu caynayn oo isagu markaasi meherka inoo qabanaya oo wiilka iyo gabadha isugu ay xiraya sida hore idinku sheegay haddaan mar kale idin xasuusiyo halkan waxaa isugu nimid maanta waa meherka iyo arooska walaalkeen imaamka masjid alfurqaan cabdirashiid sheekh haaruun iyo walaasheen asmaa sheekh cabdiraxmaan balal oo meherkooda iyo aan markhaati ka nahay sheekh ayaan kusoo dhaweynaynaa si uu markaasi qaybta ugu muhiimsaneed ee barnaamijkeenna uu inoogu gudagalo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي سبحانه وتعالى صوابك خير كان وافتشيو هذا عقد جيبان بدا قلينا عقد قصيدة الله شيء لوضع قفة يسكورسين هيا زوجكو وإمام عبد الرشيد شيخ هارون نونو قبرنا وأسماء عبد الرحمن بلل weliguna aabbaheed baa jooga wakiil weligeedana maartay waa jooga aabbaheed weyn laakiin bil wakaala anigu cabdiraxiin cabdullaahi igu soo wareejiyey meherkuna waa dhaqankii Mombasa ka barana weeyaan almuttafaq calayhi ma waxay isku waafaqeen buu noqonayaa marka insha Allah taala aqdiga baan guda galeynaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها عبد الرشيد شيخ هارون نونو زوجتك وأنكحتك أسماء عبد الرحمن بلل بإذن وليها إياي على المهر المتفق عليه أقبلت نكاحها؟ نعم قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور وحان كون نكاحيي أسماء عبد الرحمن بلل أنا بقولي جدي وإيدمي مهركنا وياها متكاد إذنكو كوهشيسين مخراتياشنا إننا قلنا ما مخراتيكا سخاصانا شيخ عبد الوهاب إسحاق يا أخونا شيخ عبد الواحد آدم بان سخاصانا ذو قري نكاحاس يا مهركاس يقولك ما أقبل. نعم وأنا أقبل نكاحها يقولك. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى هبرك يا هيركاس ويقول ويل يعانا لديه جري الرفاه والبنين بجاهلية لكن الإسلام كان وابد لي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم إذن كان آد ما سنتين سيدا نو شرفتين سيدا نو قيميسين سيدا وصل قيب قشان حفلة انت سنة وحينا نقول ما تقيبتي مهم كهيد برامج كينا عبدنا قدرني يولي صدق البرامج كينا أيان قدقلنا قف كستا منصب كيسا يا مقام كيسا أيوكو سلامي هاي وأنا كما سنتين